casho sharaftan deeqa maxamed siyaad barre oo London marti noogu ah ay ku tala galeen caawin ay u dhigaan gabdhaha qaranka Soomaaliyeed ee UK waxaan rabaa deeqoy anigoo ah ubixi kacaanka isla markaasna 12 sano jiro ayaan aabaha ayayday Brambur aan dhihi jiray maxamed siyaad barre madaxweynaha iigu tiri Brambur markaas anoo 12 jir ee Brambur kan qaadi jiray caaw hortaadaan ka qaadaa waxaan deeqoy maxamed dal wanaajiyo deeqsiina siyaad dantiisa ma eegin oo daar foqle kama fekerin waxa uu dadaalay wadankiisa horumarkii وحاري أبا محمد ونقبوجي سيقار الله وكسي قدر كالنبي محمد قلبي قال له تلال مركد داقوي أنا كوي 8 سنة وأبحي كعانك إلى وقت هذا الجوج عن قرن هاي قرنهم ملايدي ديه يا الله أبو سلامة يا داقة محمد سياد بري داق وحويان وحن وسو جوج إلا أنت هذا هل كان تمد meelo kala duwan oo lagu soo dhaweynay caawan waxaan diyaar kuugu ahay inaan ku soo dhaweyno anigoo ku hadlaya magaca haweenka qaranka Soomaaliyeed ee UK waxa weeyaan nin walba taariikhda qoraysa deeqoy aabaha ilaahay naxariistii janno ilaahay ha siiyo waana u wada duceynaynaa waxa weeyaan mid qof walba waxaan ku ri taariikhda qoraysa mid la hilmaami karana ma aha waxaanu leenahay jannadii fardoos ilaahay ka waraabi horta aabaha ayaan jecelnahay wuxuu ahaa aabahayo adigana wuxuu ahaa aabaha marka waxaan leenahay waxa weeyaan waqti ma haysano laakiin waxaan ku leeyahay soo dhawow meeshaan iyo meel kale oo ka qurux badnana waa jeclayn waqtiga noo masaabix waayay laakiin waxaan ku leenahay qalbiga wax walba ku qoran tahay soo dhawow walaalo السلام عليكم salaanta muslimka dhammaantiina meesha fadhida idinku salaamaya waxaan aad ugu faraxsanahay in gabdho Soomaaliyeed oo aad isu jecel ay halkan joogan ayna ku soo dhaweeyeen deeqa maxamed siyaad barre markaan magaca maxamed siyaad barre maqla runtii waxaan soo xasuustaa awoos gabdhihii kacaanka la afgooya ku jiray ayaan ahaa mar walba uu yimaado waxaan ahaa gabdhaha ugu horeeya ee kacaanka ee u galiya flowerka u galiya ayaan kamid ahaa aadna waan u jeclaa aadna runtii waan u jeclaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa naxariistii janno inuu siiyo asaga inta islaamee dhimatay aad Soomaaliyana maanta aad bay u tabtay maxamed siyaad barre xasuustiisi baan kugu soo dhaweynaynaa deeqa welcome to London gabdhaha London waa ku soo dhaweynaa salaamu calaykum thank you haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa Samson oo sportina ah hooyo qaranna ah ciidamada dalaydaha ku boodana xagga Brambur-ka welcome saaxiib السلام عليكم أنا ku hadlaaya magaca gabdhaha sportiga UK abaayo welcome aan ku leenahay UK gabdhaha sportiga gabdhaha qaranka Soomaaliyeed kulligood welcome to London aad ugu faraxsanahay inkastoo marka aad ciyaaraysay qoladii xoogaa idinka dambeysay aan ahaa laakiin maanta aragtidaada aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay welcome to London السلام عليكم waxaan soo xasuustaa maray deeqa jiratay annagoo almiitada ka nimidaan gurigeeda tagnay guriga markaa ugu tagnay soo salaana gabadha soo noqon hooyada marka waxay jecleed mar walba in iridka banaanka igu sugto inta ka iimaanay mar alla markaa uu imaad xagga soo dahdeen alla hooy ma ogtahay maanta maya guriga madaxweynahan galnay maanta ayaa u tagtay deeqa maxamed siyaad barre oo jirana u tagnay marka heerkaas aan taagnay farxadda iyo nolosheeni hore ilaahay noo soo cesho nasiib caawa meesha wada fadhin ilaahay waxaan ka baryaynaa meesha meel ka qeyr qabto oo wadankeena ah asagoo nabada oo bashbashii barwaaqa ilaahay isugu kaayegeeyo wixii ilaahay laga baryo waa la helaa ilaahay laabteen burcada Allah isugu kaayay mari deeqo walaalahay waxaan ku leenahay welcome waxaan rabaa deeqo inaysan laba kelmad ama saddex kelmad taageerayaasheeda shacabka ummadda Soomaaliyeed ay tiraado welcome deeqo
بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين كلجين وردتك كسو قيب قلي من حفلة aad baan runtii waqtigiina qaaligood soo geliseen idinkaga mahad celinayaa ma hadda ugu weyn horta ilaahay baa leh midda labaadna gabdhaha soo abaabulay xafladan ayaan aad iyo aad runtii ugu mahad celinayaa runtii waa midaan iloobaynin safarkaygan London aan ku imid waayo waxay soo xasuusisay yaraantaydii dadkan galaaska koowaad isla bilownay dadkan xaafadda shibs isla soo marnay taariikh aan runtii taariikh aan la koobi karinin waxay soo xasuusisay waqti hore waana mid aan iloobin marka aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa salaamu calaykum shaacibiyaha wanaagsan walaalayaal wadnaxyaaga isku yaale walaalayaal wada jir bay laba gacmood wax ku qaban karaan wada jir bay laba gacmood wax ku qaban karaan anis weeshano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal Soomaaliya ha israacdo haweenka qaranka Soomaaliya ka hamido